أولا وآخرا وقبل كل شيء مهدودا إلهي بارا سبحانه وتعالى رئيسية بيسبع ثم ما أنت وتاريخ الإسلام خواهيته يكون فربقال فتنية تضبع بشي أفراد تضبية تنكيد يكون بيغان لبدي يكون يشاني اللباتنك بشي تبنات سقال كيدي مركزك القمر فريتان كيسا culimadii iyo mucallimiintii iyo dadkii u fikiray ee markaa ku hamiyey maantana sabab u noqday inaynu isku libaadno ayaa mahadsan ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro markiska alqamar oo maanta insha allahu tabaaraka wa tacaala xariga laga jari doono ama xariga jarkiisa loo fadhiyo culimada ku hamiyey iyo cidii la wadayba ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saar dadku noloshu way wada nool yihiin dadku iyo deewa la wada jooga adduunka laakiin meesha lagu kala aragti duwan yahay ama la isku dhaafo ama dadku ay ku kala sarqeeyaan waxa weeye waa hamiga iyo hanka sare weeye qofku waxa uu qeyrkii ku dhaafaa ama dadka uu kaga horqeeyaa waa han sare hami sare inuu leeyahay oo noqdo qof wax ku haminayo oo hiigsanaya waxaa la rabaa qofku inuu hankiisu xidigaha taagnaado lugihiisuna dhulka ay socdaan yani sida fikirkiisu markaas uu u ballaaran yahay baa laga yaabaa waxqabadkiisana qofka inay u ballaadho markaa haddii aynu soo qaadano laba tusaale tusaalaha koowaad waxa weeye Cukaasha ibn Mihsan waa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wassalaam buu kamid ahaa Cukaasha radiyallahu anhu wa ardaa waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wassalaam buu maqlay oo leh ummadayda 70,000 baa bilaa xisaabin walaa cadaabin jannada gali doona markaas nabigu calayhi salaatu wassalaam markuu sidaa yiri Cukaasha wuxuu ku yiri ilaahay inuu dadka igu daro oo iga mid dhigo oo bilaa xisaabi walaa cadaabin jannada aan galo ilaahay bari subxaanahu wa tacaala iyo arigana in la igu daro nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku yiri anta minhum kamid baa tahay kuwa intii ka dambeysay cid kasta oo timaada waxaa lagu lahaa sabaqaka biha Cukaasha kaaga soo riyaa lagu lahaa wuxuu ku dhaafay marka dadkii meesha la fadhiyay la joogayso wuxuu ku dhaafay hankiisa ismuna dhihin dadkaas waxa lu malay dad ilaa kala ma gaari karna mura dhihin laakiin wuxuu sameeyay hankiisi waxa ku dhalatay waad gaari kartaa kamid baa noqon kartaa waa ku dhalatay ka bacdina waxa weeyaa kamid buu noqday isku day hortiina waxa ma suurta galaano laa imkaana qabla al muhawala isku day hortii waxa ma suurta galaan shayga inaad qabato waxa ka horeeya qabashadiisa iyo ficilka saddex shay waa in laga horeysiiya marka hore waa inuu jiro hami iyo doonis iyo raqba waa inay jirto marka labaadna go'aan qabasho waa inuu jiro marka saddexaadna khidna iyo qorsho waxa aad qaban doonto oo ku socon doono waa inaad u dejiso ka bacdi bay qabashadu imanaysaa laakiin shayga hadaad guda gasho adigoon hami aad u lahayn oo go'aan aan qaadanin oo qorshe aan u sameeyay hadaad guda gasho shayga waxa iman doonta markaas waxa weeyaa marka dambe aad ku dhax fashilanto weylaa maxaa kugu wati aad istiraada marka dambe waxaan u jeedaa in lagu hamiyay waxbarashada la soo kordhiyo macaahida la soo kordhiyo maraakista la soo kordhiyo waxa weeyaa qof waliba khibradiisa inta uu dadka ku dhaamo aqoontiisa dadku de cilmiga waa lagu kala dugan yahay ninba in bay u taagan tahay lin walba inta u taagan ama inta uu hayo inuu la yimaado lagana faa'iideysto aad bay muhiim u tahay haday macaahidu bataan iyo madaarisu ay bataanna macnaheedu ma aha inay markaa badnidaasi ay waxyeelaysay waa mukammila barkood marka kale ayuu dhamaystirayaayo ummad is dhamaystiraysa ayay la qorayaa markaa dadku waayo nin waliba khibradda in gooni u leeyahay aqoonta in gooni u leeyahay dadaalka in gooni u leeyahay libasi weey qodobka kale inta ay raaca waxa weeye iyaduna waa hal qodob oo kale waxa weeye xaafada iyo dadka inta degan
iyadana dee waxa weeyaan markiisku martibu u yahay martidana waa la soo dhaweeyaa iyagana waxa ka codsanaynaa si fiican inay u soo dhaweeyaan marti waxa weeyaan la jecel yahay inay ka dhigaan markiiska insha Allah ta'ala sidoo kale waxa weeyaan waxaan iyadana aan markaas waxa weeyaan ku dhiirigelinaynaa inta soo xaadirtay xafladda الدال على الخير كفاعله النبي عليه الصلاة والسلام قف خير تصا كي سبيه بلا أجريا أدوه هداد مانت اللي بويلو شاكتو تراضو ورماشا مركز القمر لإلها لغفري أبال كوردون أو يبادو أو كأفلحو أجربات كهلي صوبة أدوه رسيدا سوكرا هداد لبكا لو شاكتو أدوه رسيدا سوكرا لبكا هدادو شاكتو هو يدو هداي هو يوي كلا كانتو وحويا أبوه أبياء كلا كانو wiilku walaalo kale uu keeno oo dadka asxaabta liban uu sii sheego waxay la qoraysaa sidii la rabay weeye dacwada liba ibaa kaga aadam dacwada iyo khayrka qofa ibaa kaga aadam qofa inta kaga aadan ay tahay kitaab inuu akhriyo qofa ay tahay inta kaga aadan dadka kitaabka akhrisanaya inuu u sheego ay tahay qofa ay tahay inta kaga aadan inuu xoolo ku bixiyo qofa ay tahay inta kaga aadan aqli iyo maskax inuu ku bixiyo qofa markaas waxa weeyaan ibaa kaga aadan qof waliba inta kaga aadan xilka ka qaato insha Allah ta'ala ayaan cid lagu eegin cid waliba waxa weeyaan ha ku dadaasho qaybta kaga aadan inay markaa ka qaadato insha Allah ta'ala sidoo kale halkan magacayni ka muuqda waa القمر weey waa tafaa'ul saadal fiican weey Soomaa qamar waxa la yiraahdaa dayaxa la yiraahdaa Soomaa insha Allah wuxuu noqon doonaa dayaxa bulshada ayuu noqon doonaa ee markaas waxa weeyaan diinta ayuu noqon doonaa dayaxu de waxbu iftiimiyaa Soomaa waxa lagu iftiinsadaa marka iftiimu insha Allah loo noqon doonaayo jahliga waa mugdi weey mugdigaas tooshkeenu ku iftiinsan doono de dayaxa halkan in loogu markaa qoran buu noqon doonaa waa la fahmay Soomaa marka dayaxa samaduna wuxuu iftiiminayki waa dhulku iftiiminay Soomaa cadeed waa dhulka iftiimin dayaxna halku iftiiminaya jahligii toosh ku shidaya Soomaa tafaa'ul waa saadaal fiican weeye taasina insha Allah ta'ala ay lu ka faa'iideysano hadii laga faa'iideysan waayana de waa xujo weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala ni'amku ina siiyay kamid tahay mahadnaqa iyo shukrigu insha Allah ta'ala hal noqdo inaynu ka faa'iideysano waqtigeena aynu galino ugu dambeey hadalkayga waxaan ku soo koobayaa maanta waxaynu diin uga baahi badan lahay ma jirto xilli waxaynu maraynaa akhlaaqdii ay yaraatay xishoodkii uu dhamaaday xurmadii ay dhamaatay dadkii ay markaas waxa weeyaan noqdeen dad xumaanta la jahraya qof in diintii bartay oo ku camal falayni ku aqooninba oo jaahilaba inta dadku ay u qaybsameen ilaahay waxa ka rajaynayaa subhanahu wa ta'ala inaynu ka baxno inta iloo wanaagsan la Allah inagu sugo inta ilaga xunna Allah iloo hagaajiyo subhanahu wa ta'ala aad baarugu faraxsanahay furitaanka waxa weeyaan markiiska alqamar waayo waa khayr umada u soo kordhay weeye wixii khayrana qofka mu'minka waa inuu ku farxo insha Allah ta'ala qacmo wada jilbi wax ku gooyaan farkaliyana foolba dhaqdo ee markaa in la isku tago oo waxa weeyaa qacmaha la isqabsado ayaa muhiim ah inta weeyaa dardaarakaygu ugu dambeeyna dadku waa laba leey mid waa arkaan midna waa arin aqbal libaka macallimiinta iyo culimada idin yimid arintii bay keeneen deeydi kan aqbalka la idin qaba adduunyadu loo wada sidaas weey nila waxbu keenaan nila ka aqbala liba alaab wata iga iibsu kuleeyahay adood ka aqbalaysa barqayagu diin bay wataan waxay leeyihiin laga barta waa in laga aqbalo laga barta